kusoo dhawaada warka duhurnimo calansida media fadlan haddii aanu ku cusubtahay subscribe saar gambeelka furudaawo wararkii ugu dambeeyay waa duhurnimo talaado ah qodobo xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah kulankii xalay dhex maray madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo taliye fahad yaasiin ayaa wararkii ugu dambeeyay ka soo baxaya si kastaba ha ahaatee fahad yaasiin ayaa xasan sheekh maxamuud usoo hoyday islamarkaasina macquul ay tahay inuu isku dhiibo siyaasad ahaan wararkii ugu dambeeyay ayaa kasoo baxaya sanbalolshe oo ka hadlay kulankii dhex maray madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo fahad yaasiin taliyihii hore ee nisa cabdulaahi maxamed cali sanbalolshe oo xubin ka ah xisbiga uu hogaamiye xasan sheekh maxamuud ayaa ka warbixiyey kulan shalay galab ilaa xalay soo gaaray oo dhex maray madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka fahad yaasiin sanbalolshe oo waraysi siiyey raadiyo kulmiye ayaa sheegay in kulanka uu ahaa booqasho sharafeed iyo salaan uu soo codsaday taliyaha nabad sugidda fahad yaasiin balse aanu ahayn mid siyaasadaysan ayuu yidhi taliye sanbalolshe kulanka wuxuu ahaa booqasho sharafeed iyo salaan waxaa soo codsaday taliyaha nabad sugidda fahad yaasiin ma ahayn mid siyaasadaysan mid shakhsi ah oo xog waraysi ayuu ahaa ayuu yidhi master sanbalolshe waxa uu sheegay in taliyaha uu isku dayay in madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud inuu arrimaha siyaasadda kala hadlo maadaama xilli doorasho lagu jiro hase ahaatee uu sheegay in ciidamada nabad sugidda ay arrimaha siyaasadda faraha kala baxaan xilligan kala guurka ahi kana shaqayso amniga iyo la dagaalanka argagixisada ayaa waxaa lagu yidhi fahad yaasiin sidaa waxaa yidhi xasan sheekh maxamuud fahad yaasiin iyo ciidamada nisa waa inay faraha kala baxaan siyaasadda keliya ay amniga iyo argagixisada kala dagaalamaan dadka soomaaliyeed waxaan u caddaynayaa anigoo ku hadlaya magaca xisbiga u b d in aan la isku qaadin arrimo la xidhiira ra-iisul wasaaraha cusub haddii la isku soo qaaday aan laga hoos qaadin taliyaha nabad sugidda fariinta madaxweynaha wuxuu ahaa yaa dalka qalqal la gelinin doorasho si nabad ha loo qabto nabad sugidda siyaasadda faraha ha kala baxdo wixii hadda ka dambeeyo ayuu yidhi sanbalolshe waxa uu sheegay in mowqifka madasha xisbiyada qaran iyo midka xisbiga u b d marna wax dhici kara aysan ahayn dowlad wadaag balse waxaa loo baahan yahay in dib u heshiisiin iyo doorasho la aado ayuu yidhi si kastaba ha ahaatee xasan sheekh maxamuud ayaa taliya fahad sheegay inay arrimaha siyaasadda faraha kala baxaan islamarkaasina dalka uu aadayo doorasho amni ahi shirkaasi mid khaas ah ayuu ahaa shir rasmi ah ma aha waxaa la socotaa fahad iyo xasan sheekh in ay saaxiibo hore ahaa jireen malaha waxaa iska dhici kara wixii hadda ka dambeeya dalka doorasho galaya qaboojin iyo yaa meel cidlo ahi la isku dilin xog waraysi iska yahay wixii faahfaahin ah gadaal laga soo sheegi doonaa ayuu yidhi sanbalolshe wax hadda weyn oo siyaasad ahi oo fahad iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ka wada hadli karaan ma jiraan ayuu yidhi sanbalolshe mar kale dadka falanqeeya siyaasadda ayaa tuhun weyn ka qaba wixii xilligaani kusoo beegay kulanka madaxweynihii hore soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo taliyaha nabad sugidda fahad yaasiin waxaana kulankaani kusoo aadaya xilli xasaasi ah oo dalka uu ku jiro kala guur siyaasadeed iyo ra-iisul wasaare oo aan weli la magacaabin tan iyo markii 25kii bishii lasoo dhaafay bishii hore xilka laga qaaday ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya xasan cali khayre islamarkaasina 30kii cisho ee madaxweyne farmaajo u dhammaatay lama oga in saacadaha soo socda ama maanta gelinka dambe uu ku dhawaaqi doono ra-iisul wasaare cusub dhinaca kale siyaasiyiin miisaan culus oo magaalada dhuusamareeb ku wajahan siyaasiyiin culus oo mucaarad ahi ayaa saacadaha soo socda ee maanta ku wajahan magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug siyaasiyiinta ayaa waxaa horkacaya cabdiraxmaan cabdishakuur warsame waxaana socdaalka ku wehelinaya xubno ka tirsan xisbiga wadajir iyo mas-uuliyiin kale ujeedka socdaalkani cabdiraxmaan cabdishakuur iyo wafdigiisa ayaa la sheegayaa inuu la xiriiro kulan ay la qaadan doonaan madaxda galmudug iyo qaybaha bulshada sidoo kale waxaa haatan qabanqaabadii u dambeeyey ee soo dhoweynta wafdiga laga dareemaya magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud hogaamiyaha xisbiga wadajir oo ka mid ah xubnaha mucaaradka ah ee sida weyn uga soo horjeeda dowladda dhexe ayaa soo dhoweeyey heshiiskii dhuusamareeb inkastoo uu ka digay dib u dhac ku yimaada xilliga loo qorsheeyey inay dhacdo doorasho 2020-2021 arrimaha ayaa kusoo aadaya xilli toddobaadkii lasoo dhaafay dhuusamareeb lagu soo xiray wejiga saddexaad ee shirka dhuusamareeb 3 kaas oo aysan ka qayb gelin mucaaradka intiisa badan dhinaca kale shirar maanta garowe uga bilaabanaya jubbaland iyo puntland magaalada garowe ee caasimada puntland maanta waxaa ka bilaabanaya shirar iyo kulamo kala duwan oo u dhexeeya madaxda maamulada puntland iyo jubbaland
labada hogaamiye iyo waxgaradka deegaanada maamulka Puntland ayaa lagu wadaa in ay si qoto dheer uga hadlaan qodobadii ka soo baxay shirkii dhawaan lagu soo gabagabeeyay magaalada Dhuusamareeb. kulankani ayaa waxaa ka qayb noqonaya siyaasiyiinta iyo waxgaradka ugu caansan deegaanada maamulada Puntland iyo Jubbaland. labada maamul ayaa horay war ay soo saareen uga soo horjeestay qodobadii ka soo baxay shirkii Dhuusamareeb 3 ee lagu heshiiyey hanaanka doorashada dalka. si kastaba haatee Axmed Madoobe ayaa gaaray shalay gelinkii dambe magaalada Garowe halkaas oo si weyn loogu soo dhaweeyay isla markaasina arrimaha doorashooyinka halkaasi ku falaqayn doono. maxkamadda gobolka Banaadir oo ku dhawaaqday xukun kiisas musuqmaasuq ah wasaaradda caafimaadka isla markaasina rag aad u fara badan ayaa sanooyin badan lagu xukumay. waa markii ugu horeysay oo rag mas'uuliyiin sheeganaya ee ka tirsan dowladda madaxweyne Farmaajo si sharci ah loo xukumo maadaama musuqmaasuq xoogan ay geysteen. maxkamadda gobolka Banaadir ayaa shalay ku dhawaaqday xukun kiis dacwadeed 9 qof oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka Soomaaliya oo loo haysto musuqmaasuq aad u xoogan. haddaba ragga la xukumay waxaa ka mid ay rag aad u fara badan oo caan ah. maxkamadda gobolka Banaadir qaybta ciqaabta waaxda tashiga shalay markay taariikhda 24 bishii 8 waxay maxkamadda ku dhawaaqaysaa xukun kiis dacwadeed ciqaabeed ahi oo numbarkiisa yahay MGBDDL 2020 oo eedeysanayaal ka yihiin 9 qof oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk Soomaaliya kuwaasi oo dacwadooda la soo dhageysanayay 14 fadhi oo dacwadeed ahi. xukunka maxkamadda eedeysanaha koowaad Cabdilaahi Xaashi Cali ina Khadiija Xaaji Maxamed Xirsi 61 jir ah ku dhashay Hiiraan degan degmada Xamar Weyne ahna agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk Soomaaliya kuna eedeysan qodobada 241 maxkamaddu waxay ku heshay qodobka 241 xatooyo xoolo dadweyne waxa ayna ku xukuntay 9 sano oo xarig ahi iyo ganaax lacageed oo gaaraya 59 milyan oo shilinka Soomaaliga ahi sidoo kale una dhiganta $2,366 oo Mareykanka ahi. xukunka waxaa wehelinaya ka reebidda xafiiska dadweyne sida ku xusan qodobka 101 iyo 102. eedeysanaha labaad Maxamuud Buule Maxamuud ina binti Sheekh Nuur Maxamed 52 jir ku dhashay Xamar degan wadajir ahna agaasimaha waaxda maamulka iyo maaliyadda ee wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk Soomaaliya kuna eedeysan qodobada 241 waxa ay ku heshay qodobada 241 xatooyo xoolo dadweyne iyo qodobada 363 376 waxayna ku xukuntay 18 sano oo xarig ahi iyo ganaax lacageed oo gaaraya 59 milyan oo shilinka Soomaaliga ahi oo u dhiganta USA ahaan $2,366. xukunka waxaa wehelinaya ka reebidda xafiiska dadweyne sida ku xusan qodobka 102. eedeysanaha saddexaad Mahdi Abshir Maxamed ina Xaawo Maxamed Nuur 30 jir ku dhashay Xamar degan Waaberi ahna madaxa xisaabaadka ee mashruuca wacyigelinta caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk Soomaaliya kuna eedeysan qodobka 241 waxay ku heshay qodobka 241 xatooyo dadweyne iyo qodobka 363 waxayna ku xukuntay 12 sano oo xarig ahi iyo ganaax lacageed oo gaaraya 59 milyan oo u dhiganta $2,366. eedeysanaha afraad Bashiir Cabdi Nuur ina Xaliimo Qaasim Cabdi 34 jir ku dhashay Xamar degan hodan ahna xisaabiyaha mashruuca malaariyada iyo HIV-da wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk Soomaaliya kuna eedeysan qodobada 241 iyo 363 waxa ayna ku heshay qodobka 241 xatooyo dadweyne waxayna ku xukuntay 3 sano oo xarig ah iyo ganaax lacageed oo gaaraya 29 milyan oo shilin Soomaaliya u dhigata $183. xukunka waxaa wehelinaya ka reebidda xafiiska dadweyne muddo 5 sano ahi sida ku xusan qodobka 102 farqadiisa koowaad. eedeysanaha shanaad Naciimo Cabduqaadir Maxamed ina Xaliimo Cabdi Sheekh 34 jir ahi ku dhalatay Xamar ahna maamulaha mashruuca taranka iyo hooyada ee wasaaradda caafimaadka kuna eedeysan qodobada 241 363 waxa ay ku weyday dhammaan qodobada lagu soo eedeeyay waxayna dib ugu celisay xurriyadeedii gabadhaasi. eedeysanaha lixaad Axmed Aadan Maxamed ina Faadum Maxamed 34 jir ah ku dhashay Gedo degan hodan ahna agaasimaha waaxda caafimaadka guud
ee wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya kuna eedeysan qodobada 241 363 waxayna ku weyday dhammaan qodobadii lagu soo eedeeyay waxayna dib ugu celisay xorriyadiisa isla markaasna halkaas xorriyadiisa dib loo celiyay qodobka toddobaad cabduqaadir weheliye afrax ina jimco gaafow kulmiya ahna agaasimaha waaxda saadka iyo adeega caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka kuna eedeysan qodobada 241 waxa uu caddaatay in uu yahay agaasimaha waaxda daaweynta qalabka iyo xarumaha caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka waxayna ku weyday dhammaan qodobadii lagu soo eedeeyay xorriyadiis dib ayaa loo celiyay sidoo kale eedeysanaha sideedaad faarax yuusuf maxamed ina luul geele maxamuud 34 jir ah ku dhashay beledweyne degan xamar ahna maamulaha mashruuca wacyigelinta caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya kuna eedeysan qodobada 241 waxa uu caddaatay in uu yahay madaxa qaybta wacyigelinta tallaalka wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya waxayna ku weyday dhammaan qodobadii lagu soo eedeeyay qofka sagaalaad sumaya axmed cismaan ina duniyo cabdulle cali 27 jir ah ku dhalatay xamar degan degmada howlwadaag ahna xisaabiyaha mashruuca TB-da ee wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya kuna eedeysan qodobada 241 363 waxa ayna ku weyday dhammaan qodobadii lagu soo eedeeyay waxayna dib ugu celisay xorriyadeedii gabadhaasi